بسم الله الرحمن الرحيم dad badan waxay soo weydiiyaan sida ugu haboon ee loo daweey karo cudurkan myopia waa cudurka aragtida fog oo yaraata dhaliya waana cudurka ugu badan ee ku dhaca dadka ku dhaca oo maanta adduunka ugu badan waxa ugu badan ee maanta lagu daweeyo waliba side effectiga ka soo gaarayna uu yar yahay waa glasses optionka kaliya ee loo haayo daweynta myopia waa glasses waa okiyaalayaal garaada ayada loogu talagalay garaadadeeda waa garaadada minuska ama kala go'a halka ugu dhow ee aan side effects badan lahayn ee maanta adduunka intiisa ugu badan la isticmaalo waa glasseskaas marka dad lacag la tahay qof myopia qabo ama ay garaadada mar walba isbedesho ama aad isleedahay ama ay halis kale jirtaa ama aad isleedahay daweyn nooc kale ama aad u baahan tahay waxaan ku dhihi lahaa systemka ugu fiican ee lagu daweeyo waa glasseska waxa kale oo jiro daweyn ay kamid tahay laser oo qaliina indhaha oo aan dhahno refractive surgeries oo marmarka qaar laga yaabo inuu side effects leeyahay oo waxyaalo qaar marmar keen karo waxa kale oo jiro waxa aan dhahno orthokeratology oo ah cadasad oo qofka garaadadiisa lagu soo suubinayo kadibna oo habeenkii inta gashto uu ku seexanayo maalintiina asagoo aragtiisa ay 100% tahay oo magaalada wareega laakiin ayada waxay ayadana ku liidataa ay ku xun tahay waxa waa inuu qofka habeen walba xirto waayo si aragtidiisa maalintii ay 100% u ahaato marka dadka waxaan kula talin lahaa intooda myopia in ay best option koodu yahay inay okiyaalayaashooda wataan glasses-kooda xirtaan mar walba 6 bilood walbana ay hal mar check up soo biyaan waa mahadsantahay